ku dhawaad 12 sano ka hor ayay ahayd markii uu baahiyey warkii naxdinta lahaa ee ku aadanaa in mid ka mid ah orodyahanada Olombikada Soomaaliya ay badda ku dhimatay iyadoo tahriib ah. والله markii qarxada magaalada ku dhacayeen iyo hoteelada kaleete waa qaab xun waayo. أنا أهانتي hadda waxaan diyaar u ahay inaan shaqeysto markaas oo kale hormarna waa gaari karnaa waddankeena oo dhisnaa. Soomaaliya Olombikada matalaysa ciyaaraha aadan ugu farxman isdheheen Soomaaliya u matali doonta ciyaaraha Olombikada adduunka. dagaalada kale inta markay jiraan waa tababar ma aadi kartid waa magaalada dhan way qasan tahay. halkani waa kanalka iftiinka magaciiguna waa Diin Xuseen Shaab. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Saamiya Yuusuf Cumar ayaa isku dayeysay inay ka gudubto dalka Liibiya iyadoo ku sii aadinay dalka Talyaaniga bishii Abriil sanadka markuu ahaa 2012. xilligaasi oo doontii ay saarneed ay gidoontay sida ay baahiyeen warbaahinta Talyaanigu. Saamiya ayaa dhammaysatay tartankii Olombikada ee Beijing 200 mitir iyadoo aan weligeed helin tababar rasmi ah. inkastoo tartankaasi ay ku dhammaysatay kaalinta ugu dambeysa sidoo kalena ay sikama ka dambeysay tartamayaashii kale xilligaasi. wariyihii BBC ee Roman Allen waxa uu ku qeexay in wax weyn ay ahayd ka qaybgalkeeda tartankani. dadkii ka soo qaybgalay tartankaasina waxay u soo dhaweeyeen si ballaaran iyadoo heshay sacab ka badan kii ay heleen kuwii ku guuleystay kaalmihii hore. waxay ku soo barbaartay sidoo kale ku tababartay magaalada Muqdisho xilli ay wajahaysay dagaal, gaajo iyo waayo kale oo adag oo ka mid ah inaanay haysan qalabkii tartanka iyo sidoo kale in dumarka loo arkay in aanay ciyaaraha noocan ay ka qaybgali karin. sida lagu sheegay qoraal ay Saamiya ka qortay warbaahinta Al Jazeera waxay la kulantay hanjabaad, dil iyo cagajuglayn markii ay Soomaaliya ku soo laabatay ciyaarihii Olombikada ee 2008 kadib iyadoo maleeshiyada Islaamiga ah ee Al-Shabaab ay waaga ka talinayeen qaybaha ugu badan dalka oo ay qayb caasimadda ka mid ah ku jirtay. bishii Oktoobar 2010 Saamiya ayaa la sheegay inay guurtay Itoobiya iyadoo raadinaysa tababar caabiya si ay ugu sii diyaar garowdo ugu sii tababartay Olombikadii London ee 2012. intii u dhaxaysay sanadkaas ilaa iyo markii laga warhelay dhimashadeeda, laakiin ma cadda sidii tababarkaasi iyo nolosheedii ay ugu suuro gashay. sida laga soo xigtay Al Jazeera ma jiraan wax damaanad qaad ah oo ku saabsan in la aqbali doono inay ku tababarto garoonka Addis Ababa. waxay ku xirnayd xilligaasi waqtigeeda orod iyo ogolaanshaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Itoobiya. warar ay baahiyeen warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegay qorshaheedii tahriibeed ee ay u dhimatay inuu ahaa inay rajaynaysay gelitaanka Yurub si halkaasi ugu hesho tababar ka caawin kara inay gaadho ciyaaraha Olombikada ee London. Saamiya walaasheed oo la yiraahdo Hodan oo ku nool dalka Finland ayaa barnaamijka BBC-da u sheegtay waagaas in Saamiya ay ka tagtay Addis Ababa oo ay markii hore u safartay Suudaan kadibna sii martay Liibiya ka hor inta aanay dhiman. waxay soo gaadhay Liibiya 2011 September xilligaasi oo aanan dhowr bilood wax hadal ah ka maqlin. waxay ku dhaxluunsaneed saxaraha Liibiya halkaas oo dhowr jeer lagu xiray ayay Hodan sheegtay. kadib waxay go'aansatay inay doon ka soo raacdo halkaas. waxaan ku yidhi ha samaynin sidaasi walaasheedii. hooyadeedna waxay isku dayday inay ka joojiso safarkaas, laakiin Saamiya aad ayay ugu go'oneed waxayna weydiisatay hooyadeeda cafis. hooyadeedna way ka ogolaatay kadib waxay raacday doontii. markii dambe ayay ku dhimatay. Hodan ayaa sheegtay in qoyska ay maqleen qaar ka mid ah dadka ku safrayay isla doontaas. markii ay sii raadiyeenna ay ka warheleen in intoodu ay ka mid tahay dadka ku dhintay. warka naxdinta leh ee Saamiya ayaa soo shacbahay markii orodyahankii hore ee Olombikada Soomaaliyeed ee Cabdi Bile uu shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho. waxa uu xusay Mo Faarax oo orodyahanka Soomaaliyeed
ee u guuray boqortooyada Ingiriiska isagoo 12 jir ah, isla markaana ku guuleystay Olombikada sanadkii 2012. Waa bil ka bacdi markii ay dhimatay Saamiya. Waan ku faraxsanahay Mo Farah, sharaf ayay noo tahay, laakiin ma ilaabi doono Saamiya. Hal mar ayay warbaahinta adduunka ay qabsatay sheekada Saamiya in laga jilo aflaam. Waxay noqotay dhacdo naxdin leh oo tusaale u ah safar nololeed ay ku raadinaysay rumaynta rayadeeda ay ku soo dhammaatay geeri.